aqoontu waa furaha sooyaalka nolosha bini'aadamka iyo ilbaxnimada dunida ee aadmigu ku kala hormaray ee qarnigan 21aad aynu joogno aqoontu hogaaminayso. muhiimadda ay aqoontu u leedahay mujtamaca ma ahan mid lagu soo koobi karo hadal qoraal iyo sawir, balse waa barasho, cilmi, dadaal iyo waqti muddo fog marka la geliyo laguna bixiyo dadaal iyo juhdi laga gaaro hadaf, kadibna ay u aayaan jiil kuwa ku soo tacabiray xilli aqoontu ay ciriiri ahayd, iyadoo ka dhib yar heer walba ay aqoontu u baahan tahay, iyagoon guryahooda ka tegin ay si fudud intay ku bartaan kuna qaataan shahaado. raggii joogay berigii waxbarashada sare ciriiriga ahayd, macallimiinta iyo maamulayaasha maanta ee magaalada Baydhabo sida Ustaad Muxudiin Shariif Cali waxa uu ka sheekaynayaa waqtiga sida uu u kala wacan yahay waagoodii iyo waaga cusub ee u beriyay jiilka cusub ee maanta weeshanaya wadciga iyo aqoonta banyaalka ah ee dunida maanta Baydhabana ay la jaan qaaday. Caalantaas ku bacda runtii magaalada Baydhabo soo ku warqabno maraaxil badan ah marti dhinac walbarashada heer may martay magaalada dugsi hoose ee dhexe madii la ka dhamaysado ardayga weydiisada walbarasho dugsi sare meelaha kale ku weydiisada qanaaco badan lanka qabna magaalada dugsi sarena saasay banjarna ilaahay ka maasan walisal qaami walan surumi tanyada may dhiiday in magaalada Baydhabo in deerta dugsi sare geeka lang majara onogshay markiisu dugsi hoose dhexe ku baha la fadaw in ismeel kala andira may wali qanaaco taam ee la helay saas oo kala may buu adduunyada sidii tadriij iyo walka soodaaya markii dugsiga sare qanaaco taam ee la helay may hanin bahana jaamacada khayr la siya in badan magaalada Kiyaala jaamacadoodaas iyo bilowsho iyo geeka farqi weyn aan dhaxay may wali markii hore ardada jaamacado qanaaco ma ka qabna may soo biyaan markii dugsiga dhamaysada badan ama in bahayana jaamacada kale weydiisadayeen marba sana dugsiyeed ku damboyta may dhiyaaseen ardayda in iyo ka qanaacan jaamacado guda Kiyaala geek ma hadeerna alxamdulillah sanad walba soo ku warqabna arday iyo qalan bedeladaas may qalan bedeladaan dugsiga sare heerka jaamacado markii deerana may hadiska dhiiri galiyaan ardayda qanaaco ka helana in wadan shawalka baradan insha Allah taala ununa ka midowga iskuulada nidaamka degmada Baydhabo mar walba ardaydaana ka dhiiri galiyahayna in iyo wal baradan Allahumma lanki heer hadee jaamacad dibadeed helo binaanka baa kaas moor surmaan in dibidis weydiisada ama gudalanki walka baradaw in jaamacadoogi gudani yaalan oo diyaarning ee macallimiintii oo roogan maamuladii oo roogan in qanaaco ka helna noocaas yawnuna ka shaqeeyaan insha Allah taala wal kalena may wali ardayga markuu soo wadan inta rooga wal badan may bua ma ku dheer diitisna rooga waalidkiisay la rooga wal badan may bua insha Allah taala jaamacadiisa la rooga wal barashiisna weedada marka insha Allah taala eedan ka faraxsana kororka ardayda sanad ku damboyta kororow eeda maaragtay han dhawaayana noo ka hadalo magaca midowga iskuulada nidaamka degmada Baydhabo saas oo kale insha Allah taala may lama eray ku erfaday qalanka gibiyooshe hanuun ala isku dhaafo may wali dugsi roob dhamayna jaamacadda sugaaytay masterana sugay doctorina sugaaytay bedelnayna insha Allah taala waa dugsi dhamaysana hadana may bedelana jaamacadda bedelnay master rain bedelnay doctor rain bedelnay ay dhibina insha Allah to taasa weere tankala burburka madidi daladi surmeen wadanka may wali may meel ku baday dawladda dhexe wala iskiraasi wasaaradii walbarashada meel ku batay si khalal kala indina dada surumi si walbarashadii maaragtay la handeersi ilaa wasaaraddu ku qoyasa walbarashadii la ku qosimo saasa wallahi kuwadi eraygan ma inta baday isbaara in bahda walbarashada la ka tilmaamo isbaara idan ku xuma anoo ka hadalo magaca midowga iskuulada degmada Baydhabo in kelimadaas la ka tilmaamo insha Allah taala ma dhawaayana waana idan ku xuna insha Allah taala idan ma isticmaala macquul wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. madashu waa qalin jabin, jaamacaddu waa ganaane, dufcaddu waa tii saddexaad ee ka qalin bedelanaysa
qaadanaysana shahaadada koowaad ee heerka waxbarashada kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda Ganaane. waxaa camiray xafladda munaasabada qiimaha leh ee loo sameeyay ardaydan qalin bedelanaysa, arday aad u faraxsan, ku labisan 4 sano dhar ay sugayeen oo uniform ah, kaasoo qalbigooda uu ku taagnaa muddo in uu yimaado waqtiga maanta ay joogaan ayna ku labisan yihiin. waalidiintii garab taagnayd, macallimiintii la soo joogtay ee duruusta u dhigaysay, maamulka jaamacadda, ulhayga waxbarashada Koonfur Galbeed, wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo marti sharaf kale oo xafladda lagu soo casuumay oo kala qayb galaya ardaydan maalintan mudnaanta gaarka ah u leh jaamacadda Ganaane ee magaalada Baydhabo. Sheekh Aadan Sheekh Saciid oo ka mid ah aas-aasayaasha jaamacadda Ganaane ahna qoraa oo furitaankii munaasabada qalin bedelashada ka hadlay ayaa ka sheekeeyay waxbarashada Koonfur Galbeed Soomaaliya heerarkii ay soo martay iyo halka ay joogto, isagoona u hambaliyay ardayda ka qalin bedelanaysa ee maanta isugu timid xafladan jaamacadda Ganaane. markii jaawaraanada horta ma ilaa markan gooreyta meel fiilaha deertan lama tilaabiyo dhiman hadii marxaladii asaasiga ahayd dugsiga hoose dhexe sare la dhamay jaamacad wareegtooda dhamay meel fiila deertay tan lamaad waa mid adag goromada goobdeeda ونادي حمر ولا ترتم أنا حمر حافظ كل أنا مدام من المجال ما دام يعمل أهاي مثلا تجمد المدينة من هذا المدام بينهم لكن اللي يجي يجلس ده بينهم مدام يقول ساعة تلا لقوا هتن ما إلى هاي عم بورنا هاي ما إلى هاي ميل فيديو ولا هدير ولا تصاحب كه. بروفيسور أبو oo hadalka qaatay waxa uu ka sheekeeyay waxbarashada iyo sida ay door uga qaadato horumarka iyo ilbaxnimada bini'aadamka, isagoona professorka uu soo jeediyay in laga hirgeliyo Baydhabo fursado ay ardayda ka qalin bedelanaysa jaamacadaha ay ku heli karaan diyaarinta shahaadooyinka sare sida masterka iyo PhD-ga iyadoo laga tusaale qaadanayo dadaalkii la geliyay jaamacadaha maanta furan. Tan qalin jumla waa kala tagayna kaliya macna ma aha aniga sanooyin macnaha hadda la sheegi karin oo aad oo macna oo horeysa ayaan waxbarashada koobka qalin jumliyay oo bachelor-kan sameeyay maalintaas ilaa maanta intaan isla qalin jumliyay iyo wixii naga dambeeyay network-kan sameeynay waa isla xiriirnaa wax kasto adduunka ka jiro waa isku kaalmeynaa ilmaheenan kaalmeynaa ay hadda ugu dambeeyaan ka wada sheekaysanaa dadka anigu beeraha iyo environment-kan ku takhasusay waan iska warhaynaa idinkana network-ka sameeya iska warhaya war maxaan sameynaa inta maxaan horumarinaa waxbarashada horumarkeeda iyo dadaalkeeni network ku samaysta. tan ugu dambaysa aan rabo inaan ka hadlo waxa weeye waxaan ka codsanayaa wasiirka waxbarashada nasiib wanaag waa nala jooga maanta iyo madaxda jaamacadaha anagoo ku hadlaya madaxa jaamacadaha fadlan ilmaheeni waaye waxbarashadoodii maalin kasta waxaan dhahaa waxbarashadiina sii wata meeshii ay ka wada lahayna u sameynaan master degree post graduate studies inaan on inta ugu sameyn Baydhabo ugu sameyn inta meel kala aadin arrintaas ayaan codsanayaa wasiir waa nala joogta wasiirka ganacsiga waa nala jooga asagana waxaan ka rabnaa macnaha scholarship ayaan ka rabnaa ardadan inay wax ku bartaan madaxda oo jaamacadahana waxaan rajaynayaa inaan caqligeena iyo xooggeena isku keenno caqligii jaamacad intaan ugu furnay oo hadda waalidiinta iyo culumaa diinkan qireen haddana maanta post graduate studies aan u sameeyno. wasiirka waxbarashada Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiraxmaan Cusmaan Malaaq Kolkooliyow oo munaasabada gabagabadeedii ka hadlay ayaa soo dhaweyn iyo oo hambalyeyn ardayda qalin bedelinaysa kadib ballan qaaday in wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed Soomaaliya ay la baadigoobi doonto ardayda qalin bedelatay fursado shaqo, isagoona kaashanaya wasaaradaha kala duwan ee Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo hay'adaha kale ee baahida u qaba cilmiga kuliyadaha kala duwan ee ardaydan wax ku barteen jaamacadda Ganaane. ardayda jaamacadda Ganaane ee sanadkan qalin bedelanayso waxaan leenahay aad iyo aad u mahadsantihiin dadaalka dheeriga aad sameyseen. waxaan rajaynaynaa insha Allah taala inay hore u sii socotaan. wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Koonfur Galbeedna waxay diyaar u tahay in aqoontiina in la tayeeyo sidii jaamacadaha loo mideyn lahaa. waayo Baydhabo 8 jaamacadood ma qaadi karto jaamacad tayo leh oo gaaban insha Allah taala dadaalkeena waa ku jirnaa maadaama hadda naga soo bixin doona hadii Ilaahay idmo aad iyo aad u mahadsantihiin. waxaan rabaa hadii Ilaahay idmo
ardaydan oo hadda maanta qalin bedelanayso wasaarad ugu horeyso wasaaradda caafimaadka ardaydan maanta qalin bedelanayso waxaan rajaynaynaa in shahaadadooda lagu qiimeeyo aqoontooda lagu qiimeeyo shaqaalanimadooda iyo waxay rabaan hamigoodana in horta loo fududeeyo marka koowaad wasiirka ganacsigana aad iyo aad ugu mahadsan tahay mudane wasiir maadaama aad tahay wasiirka ganacsiga waxaan kaa rajaynaynaa ardaydan maanta qalin bedelanayso oo soo barteen maadada ganacsiga waxaan kaaga fadhinaa iyagana ganacsi in loo fududeeyo hadday u baahan yihiin hataa in la siiyo kaarka aqoonsiga waxaan kaa codsanaynaa insha allahu tacaala iyagana inaa u fududaysid gudoomiyaha maxkamadda sare ugu horeeya asagana waxaan fariin ugu dirayaa shareecan low dadkii kasoo qalin jibiyeen iyo wasaaradda cadaaladda abukaatay u badan yihiin abukaatinimadooda in lagu tixgeliyo haddii ilaaha idmo aad iyo aad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dufcadan ka qalin bedelatay jaamacadda Ganaane ee magaalada Baydhabo ayaa tiradoodu ay gaaraysay 30 qof oo isugu jiray gabdho iyo wiilal waxayna ka qalin bedesheen 3 kuliyadood oo kala ah kuliyadda caafimaadka kuliyadda shareecada iyo qaanuunka iyo kuliyadda ganacsiga iyadoona jaamacaddu ay ka mid tahay jaamacadaha ugu tayada fiican ee dhanka waxbarashada sare ee ku yaala magaalada Baydhabo Mukhtaar Sheekh Aadan Dalmar telefishinka iyo raadiyaha Dalsan Borshan Wiinay Baydhabo Janay